maadaama uu saxare qallalan ku yaal dalka isu taga Imaaraadka Carabtu waxa uu ka mid yahay wadamada bilowgii u dhibanaa roob la'aanta taa oo sababi jirtay kulayl xadbeel ah oo biyo la'aan ay wajahaan dadka ku nool gobolada fogfog ee roobabkuba aysan ka horin inta badan ha yeeshee sanado ka hor xal cilmi ku dhisan oo lama filaan ah ayay taas u keeneen oo waxa ay bilaabeen inay roobka laftiisa beertaan sidee aan ku sheego hadaadan weli maqal xaruntan cilmi baarista cirka oo joogto ula socota cimilada hawada ayay sameeyeen taa oo markii ay hal daruur oo qura hawada ka hesho u howlgasha sidii ay u bacrimin lahayd daruurta si ay u curato xeeladaas waxay u mareen milixdan dabiiciga ah oo iyagoo ka duulaya in si dabiici ah milixdu u soo jiidato dhibcaha roobka diyaaradan ayay ku qaadaan 48 kilogram oo milixdan ah dabadeedna la beegsadaan halka daruuruhu joogaan kadib mayay ayaa sidaas ku hoora miyaysan cajab ahayn waxay ugu yeereen qaabkan cloud seeding ama daruur beeris waayo sida xogtu tiri milixdani waxa ay kobcisaa oo cuslaysaa daruuraha ilaa ay ka curanayaan. So this is actually a natural phenomenon. It happens in the nature by itself. waa iska arrin dabiici ah oo dabeecadda uun iskeed uga timid kaliya waanu kordhinaa dhaqsano waa ka dhignaa waa intaas uun diyaaradaha kaliya uma isticmaalaan howlgalkan ee buuraha dushooda ayay sidoo kale ka sii daayaan qaacan xambaarsan milixda ka oo qabta isla shaqadii diyaaradda tani waxa ay noqotay mid ka mid ah xalalka dalkani u maro yareynta oo manaha roob la'aantu sababto sida la wariyayna sanadkiiba waxa ay hawada u diraan tiro diyaaradeed gaaraysa 300 oo xabo kuwa oo ka qayb qaata howlgalka daruur beerista docda 10 ee mashruucani waa inaan la ogaan karin khataraha ka dhalan kara oo daadadkii roobabka xoogani sababeen ee dalkan ka dhacay bishii Abriil ee sanadkan qayb ahaan waxa sababta loo tiriyay mashruucan daruur beerista oo la yiri waxa uu sababay in roobabku xadkii caadiga ahaa weydaartaan